Assalaamu calaykum kusoo dhawaada muuqaalka kanaalkan waa Bashiir Aadan. Channelkan waxaad ugu barateen inaan idinku soo gudbiyo cashara ku saabsan sida aad online ugu shaqaysan karto ama online lacag ugu samayn kartid hadba noocay ahaato. Maantana waxaan idin wadaa muuqaal cusub oo ah qaabka aad turjumaad kaliya aad uga shaqaysan kartid oo aad lacag aad ku heli kartid adigoo kaliya shaqo yar qabanaya oo turjumaad kaliya waxay ku xiran tahay luqadaha aad taqaano xataa luqad badan haddaadan aqoon Englishka Soomaaliga kaliya haddaad taqaanid barnaamijkan haddaan ku sheegayo ayaad ku shaqaysanaysaa daily ayaad lacag ugu samayn kartaa waa haddii aad fursadeeda u heshid. Saaxiibayaal, marka sanadahan dambe turjumaada waxyaabaha aadka loogu shaqaysto Soomaali badan hadda weli waa ka shaqaystaa. Yaana wareeg u daalin, waxaan rabaa inaan idin tuso website-ka aad ugu shaqaysan kartaan. Horta magaciisa waxaa la yiraahdaa Fiverr. Horeyna barnaamij ama cashar waan ugu soo diyaariyey, dad badan ma aysan arkin, balse midkan waxaan rajeynaa in dad badan ay daawadaan. Intaasna waxaad samayn kartaan like gareeya muuqaalka please. Kaliya marka adiga waxaa soo furtaa browser kasta oo kugu jiro ama Chrome-aada ama mid kasta oo ahaadaba. Anaa waxaan isticmaalayaa Chrome, kadib Fiverr. halkan inta ku jira fiverr.com qoraysaa. halkan website-kan idin sheegay fiverr.com sidaan ayuu kugu soo baxayaa. haddii marka aadan lahayn wax ciwaana waxaad ka samaysan kartaa qaybtaas ay ku qoran tahay join. waa free. join ayaad ku dhufanaysaa. waxaan idinkula talnaa inaadan dhihin continue with Facebook. waxaa dhici karta in account-kaada dhow cilad ku imaado, marka waxaa fiican inaad continue with Google aadid oo Google aad ku furtid. kadib kolley process-ku waa iska fudud yahay. kaliya Google-kaada gelinaysaa browser-kaada, kadib ciwaanka kugu samaysmaya. waxaan rabaa intaana meesha saadin horta aniga ciwaankayga waa ii samaysayaan soo gelinayaa. Google buu furan yahay. Okay, ciwaankayga waa soo geliyey. waxaan rabaa markiina idin tuso translation-ko linyarta ku shaqaysato. markaan halkaas qoro find service, markaan dhaha Somali translation. okay, wakana Soomaalida translation ka samaysa. wakana ugu horeeyo wiilkan ayaa ugu horeeyo, wiilashan ayaa ugu horeeyo. qofka ugu badan oo dhasamay yarkan waaye. saan arkayo waxaa la dhahaa yes man level 2 waaye. ilaa 400 erey wuxuu ku turjumayaa currency-ginan soo bedelo si dollar ahaan ugu aragtaan. wax yar iyo kaadiya. okay, wakana United US dollar ka dhiganaya. alright, marka hadda refresh dhaha. wakana yarka marka idin sheegay basic. baalkan markaad Fiverr isticmaalaysid waxaa la isticmaalaa packagedan way kala duwan yihiin Fiverr iyo Upwork. marka aniga waxaan badanaa xiiseeyaa Fiverr-ka, sababtee Fiverr shaqadaada adiga meesha soo dhiganaysid. waxaad samaysanaysaa gigya. hadda yarkan wuxuu sameeyey 3 gig basic oo ah midka ugu horeeya, kaasoo uu turjumaya ilaa 400 erey. muxuuna ku turjumaya $5. wuxuu turjumaya 400 erey. wuxuu sameynayaa proofreading.
wuxuu sameynayaa proofreading yani waxaa waaye ereyada meesha qaldan buu ka bixinayaa. Document formatting wuxuu sameynayaa sizeka ama fileka loo soo diray sizekeeda wuu bedelayaa. Standardka waa kana wuxuu ku qoray plan B 1500 erey wuxuu ku turjumayaa $15. Premiumkiisana $35 oo ah 3500 erey. maxay ahaydee badanaa dadku waxay sameeyaan way kula soo hadlayaan qofka markuu meeshan imaado wuxuu imaanayaa contact seller ayuu soo dhahayaa uu kula soo hadlayaa. waxaa laga yaabaa qofka ereyadaada meesha kugu qoran ka badan inuu rabo inuu hal bog oo English ah inaad af Soomaali ugu turjumtid ama aad u samaysid voice over waxaa loo yaqaan oo ah inaad cod u recording garaysid af Soomaali ah aad af Soomaali ahaan ugu duubtid. marka qiimaha kiishiinaysan waxaa laga yaabaa inaad $50 raadida ka qaadatid. $10 waxaa kaa goosanaya website-ka ayaa kaa goosanaya $40 ayaad helaysaa. hadda yarkan 31 order ayuu sameeyey. 31 orders ayuu sameeyey. 31 order ayuu qabtay. marka maasha Allah ma xumo. waxaa waayo hadba sidaad u dadaashaan. qofka markuu shaqado aad u qabatid waxaa loo baahan yahay inaad sidoo kale ka codsatid review waa dhahdid aniyo review fiican sii. maxay ahaydee waayo markasta review fiican heshid waxaa waayo meel fiican ayaad sii tagaysaa. marka waxaa loo baahan yahay markasta sidoo kale inaad online-kaaga u bato si shaqooyinku ugu soo dhacaan. hadda waxaan rabaa marka inaad idin tuso qaabka horta ciwaanka u furan lahayd. ciwaanka sida u furan lahayd haddii aan meeshan dhaa ku ekeenaya waxaa laga yaabaa sabarnigna maxaa ka qaldan waayo qaabka ciwaan loogu furto noo tusi waayey. hadda ayaan rabaa inaad idin tuso qaabka ciwaan loogu furto. ciwaankaanaan leeyahay off kadibna ciwaan cusub aan sameynayaa idinkoo ay arkaysaan. okay marka kuu soo gashid waxaad raadinaysaa meeshaas ay join ku qoran tahay. join ayaad ku dhufanaysaa kadib intaan midkood ayaad ka dooranaysaa. Google Gmail haddaad leedahay Gmailkaaga mid ka mid ayaad kusii dhufanaysaa. tusaale midkaan haddaan ku dhufto sign ay kusoo baxayso magaca meesha aad ku qoranayso kale hilaal magaano kale sii qornaya hilaal cali join the boom waa diyaar. ciwaanku waa samaysan yahay. refresh aan yardhaan xoogo meeshaas aad tagaysaa kadibna profilekaaga sii tagaysaa. alright marka akhyaaray waa kanaa. marka waxaad saxanaysaa profilekaaga. profile wanaagsan wanaa qorataa sawir aad saarataa waayo whenever sawir usan ku saarnayn waxaa waayo dadku profilekaaga si kusoo aadan way adag tahay. marka inaad profile sawir fiican aad saaratid sawir waa inaad raadisaa fiican aad saaratid. midkaan aad iska saaraya inkastoo sawirkaaga uu fiican yahay ana waxaa idinkula talaa inaad sawirkaaga saaratid. okay hoos u daadeg meeshan description tay ku qoran tahay description ku qoro. maxay ahaydee waxaa la rabaa inaad meeshan ku qortid waxyaabaha aad xirfadda u leedahay oo kale inaad qortaa loo baahan yahay. muuqaalka waan buusinayaa si uusan waqti u qaadan.
alright waxa sir halas yaran ku qornayna iska baraaba laakiin adii description dheer iska qoro xirfadahaaga luqadaha taqaano intaas ku qoro meeshan language-ka imaaw basic waa luqada ugu muhiimsan waxaan leedahay luqada koowaad ee meeshaas gelinaysaa Soomaaliga oo kale diyaar waxaan leedahay native waa luqada ku dhalatay update kadib luqad kale ku dar laba luqad oo kale ku dartay wanaagsan tahay English levelkaagana kadib waxa ka dhigata oo kale fluent ka dhiga ilaa dadku waxay raadinayaan qof fluent ah baana qof si xifdisan yani si fiican ugu hadli karo laba luqadood waa enough skills xirfadaha oo kale meeshan aad gelinaysaa translation writing expert laba skills oo kale oo muhiim skills kale ku darso maxaa kaloo dhihi karaa voice talent voice over actor okay experience expert laba oo kugu filanta education kale oo iska gelin kartaa laakiin muhiim maaha education cancel dhigi kartaa certificate muhiim maaha intaas marka aad saxatid waa inta ugu wanaagsan oo aad ka saxan kartid sidii Upwork oo kale lagaga baahna inaad profile dheer saxatid just kaliya waxa lagaga baahan yahay inaad maxay profile fiican saaratid kadib aad skills kale qortid kadibna aad gigyada aad create garisto gigyada aad samaysatid gigyada sida loo samaysto oo dheeraanaya maqalka fadlan marka waxaan idin codsanayaa haddii dana ama xiisa gaar ay kugu jirto inaad turjumad ku shaqaysatid marka gigan habeenda baan soo diyaarinaa insha Allah waqti ay qaadanaysaa waxaan doonayaa in maqalka dheeraan oo lagu cajisin hal habeen giga si fiican ugu soo diyaarinaa qofkii danayna inuu ku shaqaysto qab turjumada oo maqalkan dawday kaliya ciwaanka samaysto habeenda ma habeen ku siiga haddaan wajaan si fiican helo maqalka xiga waan soo dhigi doonaa oo aan idinku tustaan qaabka shaqada gigta loo samaysto wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh